shir wada tashi ah oo looga hadlayay Gudninka Fircooniga ah iyo tacadiyada ka soo gaara gabdhaha Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Kismaayo. shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay ururada bulshada, culamaa diinka magaalada Kismaayo iyo shaqaalaha wasaaradaha. kulankan oo ah mid si qoto dheer looga doodayo Gudninka Fircooniga ayaa waxa uu socon doonaa muddo ilaa 3 bari ah, waxaana lagu wadaa in muddadaas laga soo saaro qodobo iyo shuruuc ka hadlaya Gudninka Fircooniga ah. Zainab Rashid Cige waa agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, qaybta xuquuqul insaanka, waxa ayna waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u jeedisay maadaama ay iyagu dhib soo mareen in ayna gabdhaha dhib ka marinin ee ay ka daayaan gabdhaha ay dhaleen dhibaatada Gudninka Fircooniga ah. intaas oo dhan maamadii soo martay waxa nasiib darro ah maamooyinka Soomaalidu intaas oo dhan bayagoo soo taabtay inay hadana gabadh yareed ay dhaleen iyaga laftarkooda gudaan. nimankana waxaan u soo jeedinayaa iyo wadaadada iyo gaar ahaan bulshada inteeda wax ka radkood arrijaal qawaamuuna cala nisaabaalay ma aha maamada oo kaliya tayn lagu daayo gabadha yar oo la yiraahdo iyada dhashay sida doontana ha ka yeesho aabuhu gabadhan mas'uul buu ka yahay isaga dhalay isagaana mas'uuliyadiisa la weydiinaya ilaa qiyaamaha in uu yiraahdo hooyadeed baa sida Fircooniga u sameynaysa ama sida ka arrimaheeda ka hadlaysa maaha waa inuu isagu si daacad uga istaago waajibaadkiisa gutaa oo ku qanciya gabadha inaanu maamadeedu aanay gudin. agaasimaha waaxda arrimaha diinta ee wasaaradda garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubbaland Abdullaahi Maxamuud Ibraahim Faaqid oo kamid ah culimadii ka soo qayb gashay ayaa sheegay in ayna diintu ogolayn wax lagu magacaabo Gudnin Fircooni ah. marka Gudninka Fircooniga ah waa curyaaminta iyo tacadiga gabdhaha. terminology-gaas aynu isticmaalno diinta islaamku waxay ogoshahay mid yar oo la yiraahdo sunna waa taqaanaan حتى واجباتك وكفدود يهي markii diinta laga hadlayo shayga sunnihi uu ka fudud yahay waajibaadka marka sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waanu sameyn karnaa public ahaan ama population ahaan culimadu uma soo saari karto gudniin oo dhan hal la joojiyo laakiin waxa la soo saari karaa si cad oo bayaansan loo soo saari karaa culimadu ay soo saari doontaa insha Allah taala gudniinka tacadiga xadgudubka hal la joojiyo. wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Dr. Ali Nuur Ahmed ayaa dhankiisa sheegay dhibaatooyinka ka dhasha Gudninka Fircooniga ah ee dhanka caafimaadka ah waxa uu sheegay in uu sababi karo cudurro fara badan. gudniinka marka wuxuu dhibaato keenaa isla marka gudniinka uu dhacayo oo gabadha la gudayo waxa dhici kara dhowr shay waxa dhici kara kow geeri in cunugta dhimato maxay u dhimanaysaa dhiig bax waxaa jira laba artery vulva iyo artery la yiraahdo carotis dorsale labadaas artery haday gooyaan ma joojin karaan dhiig ilmahaas waa dhimanayaan waa dhimasho kow sakiin ama mindi mirirtay ay isticmaashay cunugtaas waxa ku dhici kara tetanus waa laba cudur oo dili kara Soomaa maxaa saddexeed oo dili kara infection mindida iyo waxa isticmaasho dhan ma lahayn nadaafad infection waa diyaar saddex cudur oo dila ah bay markaas gabadha dul saaran tahay dhiigbax tetanus iyo maxay ahayd infection. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubbaland Maxamed Yuusuf Umar oo shirkadda furay ayaa sheegay in guud ahaanba laga hortago Gudninka Fircooniga ah bulshadana laga wacyigeliyo. qaybta saddexaad oo ka rabno arrintan inay ka dhidhiso hadii inta la sheegay ay jirto waa haweenkii oo arrintan ay ku dhacaysay oo maxay ahayto sida tooska ugu dhacaysay ayagana waxaan rabnaa inay arrintaasu aysan ka gagabanin kana xishoonin xaq laga ma xishooday wixii jira iyo culayska ay arrintaasu ay ka leeyihiin ama ay ka dareemayaan in ayagana saddexdaas markaan isku keenno oo runtii caafimaadkii culimadii haweenkii barnaamijkaas markaan isku keenno aan isu geyno cid walba meesha ay kaga haboonta inay kaga qayb qaadato waxaan isdhihi karaa waxa ka soo bixi karo barnaamij fiican oo aan isleeyahay dadka naga dambeeya iyo jiilka naga dambeeya waxay u noqon doontaa hordhac iyo maxay ahayto waxay hiigsadaan ay ka faa'iidaan. Shukri Aadan Sayid, Universal TV, Kismaayo.